golayaasha labada gole golayaasha dawladda federaalka ah golayaasha dawladda Puntland isimada nabadoonnada ergada Djibouti waddankan walaalahan hay ee Djibouti ergada waddankan dariska nahay ee saaxiibka nahay ee Itoobiya hay'adaha caalamiga ah bulshaweynta reer Garowe ee caasimadda Puntland iyo Puntland oo dhan iyo Soomaaliya isaga timi meediyaha dhamaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan kadib waxaan halkan aad iyo aad ugu faraxsanahay mudane madaxweyne inaad maanta xariga ka jadhay adiga iyo madaxweynaha dawladda Puntland garoonka caalamiga ah ee General Maxamed Abshir Muuse waxaan mar labaad soo dhaweynayaa ergada uu madaxweynuhu hogaaminayo oo ballaaran waxayna mar labaad aan leeyahay sharaf bay noo tahay inaad furitaanka garoonka ka soo qayb gashaan iyadoo tan ay tahay caasimaddii Puntland mar horena laga sugayay markii lagu doortayna 3 maalmood iyo 3 habeen wixii shalay oo kale dhacay ay dhaceen waan hal mar maaragtay meheradaha ganacsiga la furin dabaaldeg maaragtay adiga maaragtay taaniyad shacabka ay ku gudbinayaan tan shalay dhacday oo ay kugu soo dhaweeyeenna waa midda ay dawladda federaalka u qabaan waa mid ay hogaamintaada u qabaan waxaan leeyahay inta in ka badan inaad Puntland ku soo noqotid iyo caasimadeeda ayna ahaato tani meesha hatta marka aad fasax leedahay meesha aad timaadid inay tahay Garowe ayaan soo jeedinaya waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha dawladda Puntland oo ah shakhsiga ay ku suntan tahay garoonkan dhismihiisa ee caasimadda Puntland ee caalamiga ah ee General Maxamed Abshir Muuse waxyaalaha uu dadkan uga tagayo ayay ka mid tahay madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waa ku mahadsan tahay madaxweyne aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waxaan kale halkaan uga mahad celinayaa dawladda Kuwait oo fanka qayb ka mid ah ama qaybta ugu ballaaran bixisay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa shirkaddii dhistay garoonkan oo aan oran karo yani way guuleysatay su'aashii la weydiiyay oo ahayd garoonkan sidee noqon doonaa marka aad maaragtay xariga laga jaro ninkii shirkadda madaxda u ahaa wuxuu yiri hadda ka jawaabay waxaan ka jawaabtu waxay noqonaysaa garoonka markii la dhiso baa jawaab noqonaysa waxaan ku leenahay garoonku waa guuleystay sidii ugu casrisanayd baana loo dhisay sharaftaasna shirkaddan u soo jeedinayaa Turkiga ah ee garoonka dhistay dadka reer Puntlandna xurmad agteeda ku leedihiin shaqooyin badan inaad ka qaataana waan rajaynaynaa Puntland waxaan kaloo halkaan uga mahad celinayaa wasaaradda duulista hawada shaqada miisaanka leh oo ay ka soo qabatay garoonkan dhamaystirkiisa aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahad celinayaa gudiyaashii hore uga soo shaqeeyay oo sababta u ahaa in garoonkanu asaaska u dhigay in garoonkanu dhismo iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa dadkii baxshay lacagaha ee reer Puntland ee badankooda caasimadda deganaa waad ku mahadsan tihiin ka qaybgalkii garoonkan quruxda badan ee ku soo kordhay caasimadda Puntland inta haddaan iraahdo kan waxa weeye waa garoon international ah oo caasimadda Puntland ku soo kordhay waa garoon ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waa garoon u furan bulshada caalamka oo dhan waxaana magaaladanina waa magaalo horumar weyn uu ka socdo waxayna dhammaan aan ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo maal gashanaysa horena waa u niri haddana waxa weeye daafaha dunida garoonkan waxa weeye non stop weeye maartay safaradu meel kasta ay ka yimaadaan aad iyo aad baan maartay u soo dhaweynaynaa ciddii maal gashanaysa caasimadda Puntland waana magaalada koowaad ee percentage-ka ugu badan koritaanka maartay ee UN ka diiwaan gashan waxaan leeyahay guuleys waa mahadsan yahay maayarka magaalada Garowe haddana waxaan